kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijka dunida haweenka oo toddobaadkiiba hal mar aad si toos ah uga daawataan telefishinka codka bariga Afrika. Toddobaadkan daawadayaal barnaamijku waa ka duwan yahay barnaamijyadii hore. Waxa marti iigu ah Khadre Maxamed Yuusuf oo bulshada inta badan kale ayna daawanayaan in badan ay aroosyadooda ka tuntay. Khadra kelmad baa lagu xasuustaa 8 ever 8 Khadra kusoo dhawo telefishinka codka bariga Afrika barnaamijka dunida haweenka soo dhawo waan ku dhawo walaal macaan intaynaan horta buraanburkaaga iyo halabuurka iyo waxyaabaha faraha badan ee aad u qaada dhigtay bulshada kugu taqaana aynaan oo guda gelin Khadri waa tuma halkay ku dhalatay halkay ku soo barbaartay Khadri waxay ku dhalatay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan dhashay 39kii ma sha Allah xaafadii Shaboorama halkii baan wali joogay Hargeysa halkii baan ku hana qaaday iskuulka halkaasaan ka galay shaqadaadan aad hayso halkaasaan ka bilaabay waa tahay Khadra horta Khadri iyada aroosyada ka buraanburayso oo baa la arkayo ma sha Allah tabaaraka Allah waynu soo qaadan doonaa buraanburada qaybaha loogu jecel yahay ma abwaanad ba Khadri abwaanad waan ahay waan sameeyaa bismillah markaan bilaabay aniga oo yar ayaan hawshan soo dhex galay waa gartay saaxiibadii barwaaqa macallinii ah walina aan wada soconaa waa gartay iyada la'aanteen waxba imay suurta galeen waa gartay aniga oo yar oo malcaamad dhigtaan barwaaqays baranay saasaan ku bartay waan raacay dhowr cishaan raacay adugu waan la qabsaday barnaamijkii sanadee u wadi lahaa hawshii bahalayn la markii dambe anaa keenay anaa maskaxdayda ka soo sameeyay buraanburadii saasaan la qabsadoon de ku soo caanbaxan ku soo shacba markii kuugu horeysay Khadraay aad buraanburtood aroos ka buraanburto taariikhday ahayd iyo habeenkii ahayd iyo waqtiga ahayd ma xasuusataa waxay ahayd baan malaynayaa 2005 waa gartay ay ahayd waxay ahayd diir meel maalmi bariyo hore imika hodheela lagu dhigtaa laakiin dad baa la xir jiray waa gartay xaafadda wuxuu haaban malaynayaa ina mooge diir baa lagu qabtay habeenkii u horeysay in istaago mashrax buraanburo in dhiirado waayo dadka xaafadda dhan baa soo wareegay waa gartay oo dadka arooska waa laga batay habeenka foodhida iyo biista halkan kalsoonida ka helay halkaas aad wali ku socotaa aan wali ku socdaa shaqada buraanburka haweenka Soomaaliyeed caan bay ku ahaayeen haday noqoto heesa hawleediyo marka hadhuurka la tumayo kale ilmaha oo kale marka loo heesayo oo kale intanaad haysaymka aroosyada laga buraanburo wali dhaqankeenu ina daba socdo ma isleedahay ka Khadra ahaan iyo groupka ah inay shaqadan qabtaanba kaalintii dhaqanka ee haweenka waad soo noolayseen oo wad buuxiseen aad waanu buuxinay maxay ahayd toolay wallahi dhaqanku uu fiican yahay imika dad waxa dumar badan oo waxa jira buraanbura dadku aad bay imika u badan yihiin oo marka waxaan ku leeyahay markii hore dumarku damay soo shacbixin laakiin imika dawaatan la soo shacbaxay buraanburkii meel walba laga sii deynayay caalami horumar gaadhnay marka wallahi wala buuxiyay aad iyo aad waa tahay Khadraay markaad aroosyada joogtaan oo kale waxa jira buraanburo dadka aad u soo jeeta kale dadku bulshadayna daawanaysan marka adiga ku arkaan in su'aalo badan ku soo weydiiyo wala buraanburkaaga bay ka jecel yihiin barnaamijkuna waa kii haweenka waxa jira buraanbur inamada dhalinyaradii aad u jecel yihiin iyo waliba kooxda dhexaba buraanburkaas waxa la yiraahdaa buraanburkaas waxaad ku sheegaysaan yacni marka inantii aroosadahayd ay fadhido oo kale inantii baa la waaninayaa bal buraanburkaas inanta la waaninayo oo maxay raggii lagu amaanayo albaabkiisa haw balladin leeyahay bal waxaan jecelahay buraanburkaas hal iyo laba inaan kugu soo dhaweyno sax barnaamijka waxa weeyaan buraanburku marka inanta aroosada la waaninaya waxa la oranayaa imika midna kala waaba adiga waaba nuuraba waxa la oranayaa nuurahayan ku ahaniye wanadahayda maqal
nawaana waa dhaxale walaal weelal badan u dhigo waana waa dhaxalayahay kaga dhicin cidlada nuurahay sooriso hormacahaan baa rag lagu sabaa sari hirto seexanaaya la saxar tiraa sanqadha waa laga yareeya markuu saldhigo sida hamaahiyo sabaha la rag lagu dhaqaa subaxba wuxuu soo helahaa saakin lagu noqdaa qallaho caada ragta qariyo ha soo bandhigin erayga leedahayna ehelikiisiyuu ogaan intuu ka baxahayo albaabkiisa ha u ballaqin nawu gaboobaha ninkii goor xun lala hadla dad ku qaylisid waa mashaakil nawu gaboobaha ninkii goor xun lala hadlaa oo gaboobaha ninkii gogosha lagu cunaa weliba sayga haga saraa joogogo adeega raggu marbuushana shaneeya shakiga badshaa shafkuhu taagahayo shaahagu uma dhadhamo xabiibi markaa tidhaa buu xishoonayaa inahad xaaskihiisi tahay buu xurmahaynaya kuwadaysaasaan kuwadaysaasa waa tahay khadra kole waa waane iyo wax badan oo dumarkii imaka hadda joogay laga la-yahay waxa weeye wax badan oo raggii hadda joogay dumarkii hadda joogay baan ujeedaa laga la-yahay weeye marka subaxba wuxuu soo helaa saakin lagu noqdaa waxa weeye yacnihii inaanad ninkii qawadino aad mar walba aad salka u dhigto reero badanna waxaa laga yaabaa khadraay inay ku burbureenba in biilkii laysku qabsado marka waanadaadaasi maxay ka taraysaa waad isleedahay khadra ahaan wax badan bay ka taraysaa inani waxay tiri markaanu ninka isku kacno isdhaahda dee maanta reerka baabiiba waanadaadu maan xasuustaa markaasuu maan idhaahdaa bay tidhi bal horta cagta u dhig marka in badanoo wax ku qaadatay baa jirta qofkii caqli leh waxuu ku qaadan kolley fanku waa qayba badan yahay khadraay markaa xagga buraanburkunba mise waxyaabo kaloo xagga fankaaga kalaad qabataana way jiraan buraanburka heesaha nooc walba heesahan qaaday way jiraan buraanburka waan qaadaa wakaata waa tahay marka la eego fanka iyo suugaanta waqtiga xaadirkan taagan kolley dhinac walba waa loo ridayo fankii imika wax laga yaaba inuu noqdayba wax qof kasta iska soo galo marka aduguna qayb muhiim ayaad kaga jirtaa maxaad adiga khadra ahaan aad ku aragtaa markaad aragtay abwaanada gabyaya maadaamaad abwaano tahay maadaamaad hawl abuur tahay soomaaliyeed oo weliba haweenkii aad tahay waxyaaba la baradayaamiyo khadra ahaan ciil kaa qabtay ma jiraa sidaadii lale masaa laga daayo may wallaahi waxaan arkay oo la baraqdayaamiye ma jiro waayo fanaaniinta maxay ahayd oo leeyihiin abwaaniinta waayo fanaanka abwaan baa ka dambeeya wallaahi wax aan mushkilad aan ku arkay ma jirto way fiican yihiin balayaalkaa kaga marka laga yimaado khadraay buraanburka gabayo kalood leeday way jiraan buraanburaa jira buraanbur weli gabay maaha laakiin buraanburaa jira badan marka laga yimaado xaggii gabadha la tilmaamayo oo kale waxyaabaha kale ee nolosha inagu xeeran ma jira waxyaabaad ka samaysay may weli taa kama samay laakiin buraanburka aroosyada inanteena kala amaanayo mooyaan laakiin kuwa kale waan soo wada insha allah waxaa jirtay hees aada u qaali ahaydoo inkastoo aynan muusig ku leedahayn la yidhaahdo qurba jooga dabado maxay ahaydeen beijkaagii oo dee loogu baaqayo in wadankii mar labaad lagu soo hirto oo qurba jooga ay yimaadaan wadankii bal waxaan jecelahay beydkaagii heesta qurba jooga dabado inaadna xasuusiso adaa deexan doono naxariista reemiyo duudi ceerigabiyo degaankiisana qabo ceelaf weyn hadda calmarin jidka dayaxa soo raac buurta daala soo fuul badda dacalka soo saar degaankeeda udugale
daymada ku balbaal qurba jooga dibadow in dalkeenu hodan yahay malaama dareemine kolka diririgu yaad helo kaalay soo dalxiisoo kaalay daltabiyada iskaga fiye waa tahay khadra afkaaga caana lagu qabay waa tahay haddaynu eegno khadraay aynu intaa kaga nimaadno heesaha iyo buraanburka waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka caanka ah sida adiga oo kale ama hablaha caanka ah sida hablaha warbaahinta ku jira oo kale hablaha caanka ah sida adiga oo kale imka khadra kole bulshada ina daawanayso oo dhani waa garanaysaa oo intaad arooskooda ka buraaburina aroos kala isugu timaadeen waxaa la yidhahdaa xagga guurka oo kale uu ku adkaada oo raggu ma jecla inan caana inay guursadaan arrinta weliba adigoo ku xeel dheeraanaya maxaa u sababa bay kula tahay adigu khatar ahaanse ma guursatay weli anu waan guursaday horta dee mushkilado badanna ma imanayaano markaad ninkii ka tagtid ee labisatid aroos tagtid horta dhibteeday leedahay soo maad garan dee waxaana loo diidayaa qofku markuu caan yahay uu dee bulshadii ku dhex jiro de waxa fiican horta inay gabadhii u dhowrsoonaato markaasaasunbay dee rag u diidayaan in gabadh caano oo la wada garanayo waar hebelo waa tii dee gabadhaadi halkan aan ka daawanayo halkanay maraysa ayaad horta dhibta keenaysa de hinaasana uu ku jira umaan malaynaya meesha in ninkii dee gabadhii ka hinaasayo waayo gabadhii markay soo labisatay meel soo istaagtay qurux badnaato de wuxuu odhanayaa wallaahi kaasba biloosha la raacaaba koley gabadh qurux badan waa la wada jecel yahay khadraay marka inay gabadhiisu qurux badnaato oo dumarka ka tilmaanto maxaa ku jaban baa la odhan may waxa ku jaban waxa weeyaan gabadha ninkii inay qurux badnaato weeyaan waa gartay laakiin dadkii kale inaanay qurux badnaan gabadhiisa inuu quruxdeeda iyada daawado ay ku koobantay diiniyana ay tahay soo mad garan marka aniga horta caqabada aan isku haysano u horeysaba odaygayga waaba taaba is astur maxay toolada aroosyada de hawlo badan baa adigu jira waan gartay soo mad garan marka dee dhibaato badanna wallaahi way leedahay laakiin waxaan leeyahay dee qofka waxa kalifay ee soo saaray ee dee inuu maxay toolay mashrax yimaado horta haddaad qofka amba aad fanaanad noqoto amba aad wariye noqoto to horta aday sharaftaada kugu xidhanta soo maha qof walba da siduu iska dhigo ayuun baana dee noqonaysaa marka waxaan leeyahay hablaha qofku markuu ay inanta caanka ah dee inanta kale way ka fiican tahay way ka reer magaalsan tahay way ka wanaagsan tahay saah loola socdo waa tahay khadraay haweenka inta badan waxaa lagu canaantaa sida imika adigoo kale shaqooyinkan aad hayso oo kale haweenka inta badan waxaa lagu canaantaa iyaga laftooda inay dib isu rideen oonay jeclayn inay kasoo dhex muuqdaan bulshada adiga khadra ahaan arrintaasi ma kuu muuqataa horta qofka markuu caan yahay uu dee shaqaysanayo u bahlay waxaan leeyahay dumarku inay shaqaystaan oy maxay haytoole meel ka muuqdaan oo iswanaajiyaan way fiicanta inta badan waxaa la yidhahdaa hooyooyinka inay soo baxaan waxaa ku kalifaa ragga hadda xilligan jira oon mas-uuliyadoodii dayacay qof bulshada in badan kusoo dhex jirto xogagaalana waa tahay bal arrintaa iyada nooga waran de horta ragga wada dhaleeceyn mayno in xun iyo dayn wanaagsan way jirta barur kuliyaa barur iyo qurmisaan leeyahay koley tan soo baxday ee shaqaysanaysa ee dee bacadka taagan waa qof duruufi soo saarta qofka haddaanay duruufi soo saarin amabu soo baxeeba soo ma haddii lagu dhiibaya lagu leeyahay maanta nuuray wakaa biilkaagi miisku ku saarayaa bixin dee haddad maa tagteen sad naag isku qurxin leed bad isku qurxin leed umay dee balanbashana cadceedaa may marteen marka waxaan leeyahay inta qeyrar mas-uulka ah in dumarkoogii dee hoos u eegeyn dumarka hoosa loo eego waa tahay khadraay haddaynu buraanburkii kusoo noqono bahasha haweenku midabkooda ku bedelaan ee dawada la yidhaahdo ama qofka skinkiisa bedesha in kolli way nagu soo badata inan aan bahashaa isticmaalin waxa laga yaabo inay
aad u yaraataba waxaa jira buraanbur aad inanta ku ammaanaysaan ood leedihiin dawo may marsan may soo bixin markaa bal buraanburkaas isagana hal iyo laba horta buraanburka qofka bini'aadanka aad ammaanaysid ayaa kaa keensanaya waxaa jira hablada midabkoogii haysta oo markay soo fadhiistana de aad dareemaysid marka wadanaysaa wargeesi wiilkii ogaba dhaadisqaabishena wargenya qalanja haysan weeyo indhuhu qabtana war buufis may noqonino barka may casayna war buufis may noqonino barka may casayna basasna may fuulino barka may cashayna waxaa hay cidhifyada ku hahaysa rag laga cabsad hablaha iyagu waa xarihiir lama xoori kara dhe hablaha iyagu waa sabiib lama saydhin kara dhe xaggee laga saydhin bad waa tahay Khadraay isaga laftiisa xagga ninka markaynu eegno marka inantiisa loo amaanay isaga laftiisa qaybtiisa maxay noqonaysaa isaga waxaa la odhanayaa markaad inankii ammaanaysid quruxdiisa iyo wanaagiisana wad ku ammaanaysaa waan gartay waxaad odhanaysaa cabdi waan ku ducee yaalow inanka cabdi baa la dhahaa cabdi waan ku ducee yaalow ku daa allow salama u haraye waayo badan ku daa adduunyada nolol ku joog aakhirana jadwacan janna fardowsana rabbigu jaraka la dhigo walehe cabdiyo how facaha waad ka fiicantay naawtuma geesiga utuma maasha allah waa tahay Khadraay waxaa jira markaad buraanburaysaan oo kale inaad qabiilada oo kale aad ku soo qaadataan oo qabiil lagu talax tago halku degi jiray halku mari jiray oo kale wuxuu qaban jiray Soomaalidana aad baa bahasha qabiilada loogu aafeeyay maxaa caqabadaha idinkaga hor yimaada buraanburka markaad qabiil ka dhigtaan marka qabiil laga dhigo horta markaad meesha soo gashid haddaad inanka iyo inanta istiraahada maanta inanka iyo inanto kaliya ammaan oo ku jooj waxa dhici karta inaad xamaasad yeelano sacab lagu tumino idiba ku ciyaarimo laakiin haddaad tiraa xagga inantan ka reer hebel oo kumee xagga inanka reer hebel oo kumee marka waxa dhici karta inay meeshuba isla qayliso marka in yar baad arkaysaa oo oranaya in qabyaalada inaga daay dadku laakiin inta badan in qabiilka la amaani jecel laakiin in yar oo badnay baa koornay inaga daa qabiilkiina wuxuu meesha noqonay adiga abu ku macaaninaya haddaanad inanta reerkoogii amaanin alkii degaan maxay tahay reer abtigeed intii oo kale aanad amaanin imika nuurahay abtiyaalada diyasligaha uga hasleecise heeyayo caqiladii ku dhalay halka hadcaana haka noogta cajaba badna nuurahay abtiyaalada nuurahay waasilidii nuurahay abtiyaalada nuuraay waaridaha gobeed maasha allah marka hada qofku ku diirsanaya marka nasiibiyadiisa amaantid iyo reerkiisa halkay ka soo jeedeen inta waa caynkan inta waa sidan dadkaasi ka dhalatay sheekh baa dhalay dawaka lacag meel lacag ka soo baxday xanaane wanaaj aad oranaysaa oo isagiiba inankii bad u sheegaysaa badanka inantay amaantu ku badantay inanka way iskaga yartay inantay amaantu ku badantay marka waa loo sheegayaa inanta wanaaj weedo waa sidan السلام عليكم حديد كانوا سعونايو marka sodaha la amaanayo reerkii la amaanayo sodaha ma sodaha inantii sodohdeedii ka sodohdeedii ha السلام عليكم حديد كانوا سعونايو سلاhan dabadeed sokeeyo ma nabad qabtaan sodohii baanu nahay saamiyadu wacan sodohii baanu nahay lagu sureeri jiray عشاي حبنا توصل صدو دي حيقا هيدي سيقا هالك في جاهن مدي صوصا ما هاي سايي دمركا سوما هاللان تيو سيدا تايي والله السيدا ديه شاي سوما للاغو مارا إنك هويدي وكتا سو إنك هويدي وكيف صاصا إنك هويدي حضر نسام عقل كان داهية واي هودال في ذاك رئيسي هذا مشروع أنا ودي عقل كان داهية ذا قرحون دار ذا قبو
egenyo olala haysayo gaari lagu shirabay saddexdii noo gogoshayay deeqdayga gudo alaabteedu sidama khadraay in badan bad aroosyada soo aad uga ahayd goob joog weli dhaqankii Soomaalidu ma sii jiraabay kula tahayo quruxdii iyo hidiya dhaqankii iyo fujaanadii iyo wanaagga weli ma sii jiraabay kula tahay wallaahi horta sanadku ka dambeeyo ayaad moodaysaa inuu tasii gabaabsi noqonayo waayo berigi hore fujaanadu way badnaayeen maxay ahayd tooleedii hidiya dhaqan baa la xidhan jiray iminka matalo nin ingiriiska ka yimid ayaa aroos buu tiri wuxuu yidhi waxaan doonayaa aroosyadiina saad u qabsataan inaan arko wuxuu arkay inantiyo taashka xidhan hableeraa taashka ninkii suurka xidhan muusigii la hor wado markaasuu daanu arooskiina waxaan doonayaa hidiya dhaqankiina inaad kusoo gashaan markaa waxaa fiican hablo in hidiya dhaqankeeni maxay ahayd tooleedii aroosyada ku yimaadaan markaa wallaahi waa gabaabsi hidiya dhaqanka waa sii dabar go-aya maxaa ugu wacan bay kula tahay khadra ahaan in hidiya dhaqankii laga tago oo sanadba ilaa 2005 ilaa maanta 2019 la joogo ama 2019 kale aroosyada wad ka soo tumaysay marka maxaa u sababay kula tahay khadra ahaan sababa walaalo sanadba sanadka dambe waxba soo baxaya waa gartay soo mad garanay marka inantii dalkii sanadkan hidiya dhaqanka ka timid oo kala arooska ay ku timid ay ku qurux badneed dhiishi wadato hidiya dhaqanka u ciyaarayaan subaxiyadii habli xidhayiin baan sabab laga baxayo maanta dirac dhalaalay aan xidhanaya ayaa la xidhay badii koreysay ka dambeysay xidhatay markaas asu de ku si dabargaay waayo subaxiyadii waxa arkaysaa hidiya dhaqankii waxa arkaysaa laga dhigay wada dhalaal laga dhigay hidiya dhaqankii oo la casriyeeyay hidiya dhaqankii yahay marka dibad goor waxay xidhan jiray 3 qayb gabadho halkan intan qaawinay 3 qayb sidaasina waxa bay imka ka yar asturan baa maxay toolay badanka habla aroosadina imka walaay isma qaawiyaan aroosyadii rag iyo dumarka la isku direeyay xitaa ma jiro walahi diintii waxba laga fahmay in asturaadina aad bay noogu badan tahay marka waanu mahadnaqaya inanta asturanaad u haystid iyo inanta qaawinaad u haysto horta isku mid ma inkastoo walahi imka timihii la dhisayay iyo qaawinaanti ayna jirin oo dad aroosyada ku aragtay oo maxay toolay walahi la is asturo intaan is asturana waxaan la is asturo waa tahay khadra kulli caawo dhan haddaan buraamburkaaga bulshada uga celcelino ee laga xiisa goyn maayo buraamburkii hore ee ahaa inanta lala talinayo la leeyahay guriga sidaa u dhaqo maxay haddaan weli ku sii socono waxa jira buraambur ah dumarka bariga hore waxa lagu caay jiray in xaafad kale u wareegto oo kale ka soo sheekayso oo kale buraambur kale waxa jira kulli aad dadka u soo jiita oo wax gabadha ha wareegin oo kale buraamburka isaga laftiisa hal iyo laba hadeen bulshada isagana ku soo dhaweeyno ayahan la yodhani waa duulayo dabdhiga ayahan la yodhani waay mertayoy maqnayde ayahan la yodhanin casar kay wareegataa maqaha xidayuhu koodhan meel xilaan ka dhacay nahaygu soo duhula waran aan ku dihirsada marka inanta iyada sidaa loo waaniyo khadraay kulli macna dheer iyo muhiimad buu ku fadhiyay markaynu asalkeennii Soomaaliga wala noqono isaga laftiisa inaan kiimiyaan jirin mid lagu waaninay waa la waaninaya haye waxa la oranayaa imika markuu inantiina ka guurso waxa la oranayaa cabdiyo wii soo dhawow oo dhagtayga maqal cabdiyo wii soo dhawow oo dhagtayga maqal war hayga guulguulino hayga guul darayna fiyori gurigowba xan ku faani jiray fartaankaas haray gaba dhaydi fiicanayda dahabku hawiya hala duug yay ka noqon mariyo ayahay dhib dareemin daris keedu yuhu xumaan ilaa jaarkeegu iyo xumaan walaaj baa la oran habeenka halka inanta iyo inanka wax waana iyo wax sheego oo looga tagay ma jirto labada dhinac waa la amaanayna inanta waa la amaanaya inanta waa la waaninaya
inanka waa la waaninaya desnayna kolleyna lama jooga canjaladu ka daawanaya khadraay kulli shaqo marka walahi hawl adag baan haynaa intii marka arooska la yimaado la islayn waxa jira aroos aan music la shito waa gartay oo dadkii markay yimaadaan adiga lagu aawado la doonayd ka maaweelisa dadkii laba isku dhici kara in adigii adaa mas'uuliyadii dhameeyay meesha qaaday marka walahi hawl adag baan haynaa kulli waa hawl adag khadraay oo inaad bulshada ka soo dhex muuqato halka uga heestaaba ayaa iyaduba shaqo adaga marka caqabadaha adiga iyo haweenka ku hawlan arintan aroosyada iyo buraanburkaba idinka hor yimaada ama khadra ahaan ka hor yimaada maxaa kamid ah walahi caqabadaha ka hor yimaada badnayn laakiin kulli waad arkaysaa dhibo badan iyo hawlo badan oo ka hor yimaada way jiraan laakiin iguma badna hargeysa deganta khadraa sax ma hargeysa baad aroosyadeeda oo kale aad shaqadaadu ay tahay mise gobolada kale Soomaaliland wada baxda bay waan tagay meel walba waan tagay waxaan tagay Yurub in baan weli gaadhin laakiin Djibouti waan tagay Lascaanood waan tagay Xamarna waan tagay Itoobiya waan tagay Dubai waan tagay Gadar waan tagay intaaba shaqadaadu muddo inta shaqada Jigjiga waan tagay ما شاء الله كل واحد لقى يا ويناد هول آدم مهمة هذا هيسو واتح خطرة كل أنت هراء برام برادة أنا بسوق بني وأنا كل بكاسة بالشدة كهشة برام برادة كلا إلا قاعد البضاء مركز ميلها جوك تأمر ورا زيادة أو كره محاكم إذا برام مركز لا يقعد البضاء حويان أنا جاي سما مركز معاه وكلا ده حلامانه نورا ما أنتو كلا حلورنا نورا هاي قرطة هذا ده رقيا هستا بدر قروح ظلوا بيمقو هذو لذي هنا قبيه لو أنا هكسنه هاي قردو ما هايدنكا كوذي ساسان كوذي نورا هاي قبرداي ذي هاي هذا ها قوبتا قوغلذي هذا ها قاسيقي هنتي حتى ذاك لا خضراي برامبر لا يراهدا inanta iya ku ilaalin tagayo kale iya ku ina kan soo guurso oo kale balka isagana dani bulshada amriye labayn ka maqashino waa runa horta kelmadaas way yar qaloocan marka aroos ka leedahay reerkii aad ku leedahay ayaha ku sheegay shanka runa inantayada ayaha ku sheegay shanin day walaalayina ayaha ku sheegay reer kooga sharafta badana ma tusbax baad rogatay mise ti Allah had ku timi oo inanki walaal ma tusbax baad inta u rogatay haa ti Allah ku timi waa calaamad isku keenay way yar qalloocda kelmadaas haye ina marka magshi khilaaf ka yar jiro adarkaysidina labada reer laakiin waxa fiican in la isku soo jiido laakiin marka lagu dhaxdo waan reerku way ama arooska dib uga yara dhacay badi waa waqtiga dadku deesam noo dheh laakiin kama yeelna badanka oo waayo sumcadeeda ku jirto markan hadaan kan ka tagno waayo kan aan ku jiifsanay bariyo kalena soo dalbanaya marka wallahi barwaaqay la shaqeysan wada shaqeynaa barwaaqana qof reer magaalo oo qof maxay haytoolay bashaashayada ay soo gacan qabatay iyada maanta heerka aan gaadhay soo gaarsiisay dadka bulshada badanka waxay galiyaan inay barwaaqo bugto ma bugto way caafimaad qabtaa way shaqeysaa fadeexadana laga joojiyo ayaan leeyahay barwaaqana aad iyo aad waan salaameynaa kale bulshaduna barwaaqo iyo ma khadra la arko barwaaqo markaba waa la xasuusanaya waa tahay khadraay inanta oo kale ma jira buraanbur ah iyada lafteeda haduu khilaaf yimaado oo kale guriga sidii waxa xalin lahayd oo kale mar hadii la yiri marka nolosha iyo guriga looga sheekaynayo ma jira waa tan la leeyahay qalooc aad aragto qariyo soo bandhig intuu ka baxay albaabkiisa ha u balaqin ereygaad leedahay ehelkiisa ogaan calashan hawshaadii adigu guriga lagu dhaxaliyo khilaafkii guriga ka yimaaday waa sidoo ahaan jiray dhaqankeena suubanaay Soomaaliyeed gabadhu inay ninkeega ixtiraamto way ka dambayso way wanaajiso raaliyo noqoto muhiimada waa jannadii baa inoo haya taasi been ma waa gartay marka hadii aan la isku dul qaadan oo labadii qof isku dul qaadan hadii maanta gabadhi cadhooto maxay haytoolay aan ka dhex kala khadraay inta badan qoysas la dhisayad ku dhex jirtaa
qaar la dhisay oo kale halkaas isku barateen iyagoo reeraho qurux badan aad aragtaana wuu jiraa khilaafka u badan maanta qoysaska iyo furiinka iyo waxyaabaha u badan halkeebu ka yimaadaa bay kula taaqadraaha ka yimaadaa maxay ahayd ole horta inanti waxay doonayso geenanku wuxuu hayay isma laha waan gartay oo iyada oo ku gashay oo uu ku yidhi waxa ma hayo inantii isguursadeen bay hadhow ku sina balaarnaanay way hudheel bay doonaysaa in maxay ahayd ole hawlo badan isna uu yiraahdo walaal waxba ma haye intaan hayay dinteena ka raaco inoo duceeyno ka baxlay marka reero badan baa saa ku burbur hablo badan yeena badan oo ku kala noqday baa jira marka waxaan leeyahay la isku dulqaato la isku tanaasulo arsaaqadana labada qof buu u daayiriin hadaan maanta hayn biri buu helaya marka waxaan leeyahay inamada hala yeelo raguna dabcaan guurku habato stay nooga yaraato xumaanto ay hablaha jooga isku guursadaan wata khadra kulli barnaamijkaaga ee toddobaadkan iyo barnaamijkayga dunida haweenkuwa aad iyo aad buu xiiso badan yahay waqtigiina wayna hayaa waa gabaabsi duwaanada u dambeysad haweenka usoo jeedinayso iyo alla cidda aad jeceshahay maanta inaad ka salaanta halkan ama uga mahad celiso barnaamijka dunida haweenka codka bariga Afrika adigu ku sugaya haweenka waxaan oranayaa in ay halka ay imika joogaan ay ka sii socdaan ay shaqaystaan oo la iska feeyo oo maxay tahay shaqadu waa macaan way wanaagsan tahay inaad meel iska soo saartaa way qurux badan qofkii wax yaqaana iyo maxay tahay dadkii shaqaysta baalka shaqadoodan dumarka caqabad la saarin maxay tahay la wanaajiyo loo dulqaato waan jecelahay bismillaah waxaan halkan ka salaamayaa family-gayga hooyaday macaan hawlahayaga inankayaga waxaan salaamayaa inankayga buradan jecel Sahal Cabdiraxmaan waxaan ku xigsiinaa odagayga family-go dhan waan salaamayaa intii magacayga iyo muuqayga taqaana waan salaamay barwaaqo saaxiibada barwaaqo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay noolow intii magacayga iyo muuqayga taqaana waan salaamayaa adigana nuur aad iyo aad ayaan ku salaamay wata khadra aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa kale amaantii maanta dhan igu dhacaysay صح iyo barnaamijkayga sidaad u soo shabcaan salaamina shabcaan maxamed xaji dhagax oo iyaduna kamid ah hawlwadeennada telefishinka codka bariga Afrika oo barnaamijka qayb ka qaadatay aad baan u salaamayaa aad baan kuugu mahad celinaynaa hadaan nahay bahda codka bariga Afrika anagoo isku duuban waa hagaag daawadayaal intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dunida haweenka oo toddobaadkiiba hal mar aad si toos ah uga daawataan telefishinka codka bariga Afrika toddobaadkan diwaayihiisa iyo waxaan ku yiri iyo waaqiciisa ayuu watay Khadra Maxamed Yuusuf ayaa barnaamijka marti iigu ahayd aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waqtigeeda qaaliga ay ii soo hurtay barnaamijka waxa soo saara ka anigoo Nuura Nalka ah aad iyo aad waxa kale oo nagu mahad celinaynaa farsamo yaqaanada igala qayb qaatay barnaamijka waa bahda codka bariga Afrika oo dhamaantiin idinkaga tagaya salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh